الرحيم magacaygu waa Cabdiqaadir Xuseen Urtacar waxaan kamid ahay saxafiyiinta muddada dheer ku soo jiray saxaafadda Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa muddo 12 sano ku siman ayaan ku jiray saxaafadda meelo kala duwanna waan ka soo shaqeeyay intaas oo shir weyne oo ay Soolja lahaydna waan ka qayb galay ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja waaye fara badan oo mid waliba waqtigiisa lahaa ayuu soo maray si sharci ah oo dimuqraadiyad ahna hoggaanka Soolja waa lagu kala wareegi jiray weligeed imika shirweynaha qabanqaabadiisu socoto ee la doonayo in lagu doorto golaha sare ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja waxa uu ku socdaa hab sharciga baalmarsan nin baashaar u toshay isaga leeg sharci shaarkiisa leegna u samaystay hore xaraan ugu qaatay gudoomiyenimada imikana doonaya mar labaad inuu ku qaato 400 oo inan ayuu samaystay oo doonaya in keligii loo codeeyo taasina wax socon mayso ma saxaafaddu way kortay aqli ahaan baa loo korayaa maskaxaan baa loo korayaa maalinba meel baa la taagay in shalay anigoo xaraan ku fuulay maantana uu ila xaraan baan ku fuulaya mar labaad wax umadu yeelaysa maaha dadku aqoon bay leeyihiin aqli bay leeyihiin ururka saxaafadda Soomaaliland ee Soolja waa loo sinaan doonaa oo asaga iyo qofka la siman ee saxafiga ee sanad jooga tog dheer jooga saaxil jooga ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja waa u sinaan doonaa sharciisa amba sharci shaqeyn waayay buu noqon doonaa shirweynaha dhici doona ee ay imika siday u wadaan nimanka Soolja imika hoggaankeeda haya waa mid ayaguna ay isku fiinaysiin maaha mid u taliyay si jiritaanka iyo waaritaanka Soolja hadday saas ku socotana laba Soolja samaysan doona oo wadanka ka samaysan doona haddii kala sharciga lagu soo noqdo dadka la qanciyo hana laga tago sharcigan shaarkiisa la leegaystay ee afarta inan iyo ninka imika gudoomiyaha ah ee xaaraanta ku fadhiyay marka xaaraanta doonayay ku soo noqdaa oo samaystay saxaafadda Soomaaliland kaligood ma aha way ka badantay waana laga tashan doonaa Allahu barakaatu aad baan u salaamayaa saxafiyiintan halkan isugu timi anigoo ku hadlaya afka saxafiyiinta gobolka Sanaag waxaan halkan ka cadeynayaa jidka ay martay Soolja inaanay ahayn ama cidda maamulaysa iminka inaanay ahayn jidkii loogu talagalay inay jid habaabsan martay inaan hore uga la hadalnaa nidi ka leexda jidkana maraysaan waxaanu cadeynaynaa in lagu koobay cid u gaara oo ay dana gaara kale yihiin haddii saxafiyiinta ay u wada siman yihiin gobolada oo dhami si siman ayaa looga wada qayb qaadan lahaa haddii aanay taa aqbalinna annaguna waanu ka tashan doonaa Sanaag ahaana gaar baan uga tashanay guud ahaana waanu ka wada tashan doonaa mid gaar aanu samaysanaynaa kooduna iyagu ku ekaan doonaa sida uu Cabdixakiin sheegay waxa weeyaan ururka Soolja waxa loo sameeyay markii hore inuu mihnad warbaahinta ku shaqeysa maanta waxa isugu bedeshay mulkiilayaashii xarumaha warbaahinta ayaa maamula taasina waxay cad ku tahay ama ceeb ku tahay in warbaahintii la doonayay in loo doodo wariyaashii in qoladii mulkiilayaasha marka hore laga caban lahaa amba hadii laga cawdo meeshii la teegi lahaa waxa ahayd in Soolja la tago Soolja ay noqoto xarun u doodo wariyaasha ma horiyaha marka la xiro inuu Soolja u doodo laakiin waa mar walba xuquuqdiisa in daba gasho hadii maanta TV amba wargeys laga cawdo waa in Soolja xalisaa Soolja imka waxay noqotay gudoomiyaasha xarumaha ayaa yeeshay waxa la casuumaya waa mulkiilayaasha waxa boorka ku jira waa mulkiilayaasha sadarteed dhammaan wariyaashii shaqeynaya wax soo saarka lahaa oo ku bartan wada fadhiya wax kala duwan halka isugu timi ujeedada waa laga hadlay anagu ka gobol Sanaag ahaan baanu ka soconaa kulli aniga iyo Ilsar runtii Soolja markeedii hore anagu gobol Sanaag ahaan wax ka tirsanayno galbeed baan xusuugnaa waxaan lahayn war Soolja xagaas bay ka shaqeysaa Sanaagtinimada soo gaadho maantana waaba tii oo loo sii samaystay cid gaar oo yani maamulata waanu qaadacsanahay shirka Soolja nama matasho waanu ka soo horjeednaa reer Sanaag ahaana warbaahinta gobolka Sanaag waanu ka tashanay anagu halka joognay anagu ergaba joognaba waxa weeyaan talaabooyinka ay qaadayso Soolja mid aanu ka sugnay maaha waanu qaadacsanahay namana matasho magacayagana magac urur saxafi ahaana kuma doonayno inay ku shaqeyso waxaad moodaa imika sida shirweynaha loo wado inay noqotay in cid gaari
ama haddii laba kuurooyo shakhsiyaad kooban lagu soo ururiyo waxaadna moodaa warbaahintu soolsha markeeda horeba uma furraa mulkiilayaasha tviyada waxay u fulan tahay xirfadlayaasha warbaahineed haddana waxaad moodaa xirfadlayaasha warbaahintu inay meesha ka maqayeen cid gaar socotaa marka waxaan leenahay shirka aad baan uga soo horjeednaa waxa nagu haray waa inta la iibsaday ee xuuto u gaar u la baxay boqolkeenan wayna ka badan yihiin inta uu cod ka doon lahaa inta matelaysa oo dabada ku wato lama matasho soolta cidda cagaheeda ku taagneed ma ahayn institutionada aan u shaqeyno cidda cagaheeda ku taagantay waa ragga mihilayaasha ee 700 samtiga xuutoy soolta lagaaga tagi maayo magaciisa kaaga tagi mayno magac kale ku dhawaaqi mayno ka aan kugu marka horeba jug soo dhacay baad haydan noogu timid haddaad si sharaf leh uga tagi weydid in sabtida aan lagu shirweyno ugu baaqano guud ahaan saxaafadda Soomaaliland oo aan ku dhawaaqano memberkii soolta xafiiska aad fadhidinna ay soo fadhiisan doonaan xukuumadda waxaan ugu baaqanaa sida ugu dhaqsaha badan caawa haddii loo kala dir waayo guddida qabaqaabada in annaguna sabtida aan shirweyno qabsanayno nagama adduun badnid nagama hanti badnid hantidaad maanta ku fadhidida kirooyinka soolta ku jirto kuwa soo xareeya waa annaga ee ragga mihilayaasha ka soo hoyda ragga aan u shaqeynay tiifiyada leh ee jaraydada leh ma hadde aad maanta dabada ku sida leedahay inaad ku kalsoon tahay soo diro inuu mushaar siiyo ku soo dirayo 70 ninna codku siin maayaan sooltina way ka badan tahay Soomaaliland oo dhan weeyaan raggii xanuunsanayay ee wariyaashaha ee ururku u taagnaa ayaad xaaladooda caafimaad ilaahay baa caafimaadka haye aad ka kafan kari weyday ood ku kharash garanaysaa hantidii aanu soo hoynay ha leegu kaambeyn garayo xuutoy raggii xidhxidhnaa inta aad joogtay ee xukuumadda Axmed Maxamuud Siiraanyo waa la garanayaa inta wariye la xiray inta institutiona xidhan ilaa imikadan aad ku fashilantay aad soo furi kari laadahay adoo xaq u leh waa la hayaa waxa allaala waxaad nagu maamushaan kugu dooranaa ma jirto waanad soo ogtay waxaan u soo kaambeyn garaysanaysaa hantidii ragga caafimaad darrada haysa aad maanta dhakhtar ku geyn lahayd aad hantidoodii ku gelinaysaana waa tan anagu soo hoyno wallaahi billaahi haddaad kala dir weyda caawa guddida shirweynaha qabanqaabaynaysaa heedhade sabtida xarunta soolteen iskugu iman gacanna way gaadhi